السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانا قيارتي وين سلامي عشان وحuu ku saabsan yahay sidii computerkaaga aad ugu xir lahayd in program laga daadiyo ama laga shubo. marka qaarkood waxa laga yaabaa qof computerkaaga saaxiibka inuu computerkaaga imaado ama qof kale uu program oo mataqaana intuu imaado ka shubo adigana programkaas aad u baahnayd. marka sidee u awoodaa computerkaaga looga xiraa programka in laga daadin karin marka waxaad sameynaysaa startigan ayaa fursaha ku qoraysaa run ku qor kadibna group policy-gaas ayaa laga rabaa meeshaas inaad ku qortid gb edit waa group policy kadibna okay ayaa leedahay meeshan kadibna ku qortid okay ayaa laga baahan yahay kadibna waxa ku soo baxayo boxkan ayaa ku soo baxayo waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay waxay imaanaysaa userka u jeeda waxaad imaanaysaa administrative template ayaa imaanaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa control banner ayaad furaysaa kadibna waxaad tagaysaa meeshan program ayaad tagaysaa marka program tagtid macnaha waxa ina ogato waay administrative template ayaan tagnay control panel ayaan tagnay kadibna program ayaa imaanay kadibna meesha ayaa macnaha waxa imaanaysaa qari programka oo control panel ka qari kadibna double click ayaad ku siinaysaa boxkan ayaa ku soo baxayo kadibna enable ayaa ka dhigaysaa kadibna apply kadibna okay ayaa leedahay kan hoos iska soo dhigo marka qofka computerka rabo inuu programka daadiyo marka wuxuu tagaa start menu control panel meeshan ayuu imaanayaa windows 7ka program uninstall ayuu imaanaa kadibna waxa leeyahay your system administrator has disabled the program and further waa laga xiray inuu qofkan program computerkaaga ka daadiyo mujidid meesha uninstall ka dhahna waa ka xiran yahay haddii u baahatana isla meeshii ayaad group policy ayaa tagaysaa administrative ayaa imaanaysaa kadibna control panel kadibna program kadibna control panel hiding ayaa imaanaysaa double click ayaa siinaysaa waxaa leedahay not configured ayaa leedahay kadibna waxaa laga baahan apply kadibna okay kadib hadda markii aad fiirisid start menu control panel aan furno waxaad u jeedaa programadii in hadda dib ugu imaadeen oo hadda qofkii ka daadi karo oo hadduu rabo oo kan uninstall diyaar marka sidaas ayaa looga xiraa computerkaaga in wax dhum looga daadin marka insha Allah taala biidna kariim waxaan rajaynaynaa ka faa'iideysan doontaan wixii su'aalana comment ayaa ku soo qori kartaan muhiimaddu waxay tahay inaan kala faa'iideysano. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa jazakumullahu